kula wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah dagaal aad u culus ayaa wali soconaya gobolka Axmaarada iyadoo ciidanka dawladdu ay mar kale ku jabeen furimaha hore dagaalka Ethiopia ayaa ciidamadii ugu tirada badnaa u daabulaysa gudaha Somaliland iyadoo ciidamo aad u tiro badan ay soo buux dhaafiyeen xuduudka ay maamulka SSC la wadaagaan dawlad deegaanka Soomaalida ciidankan oo ka soo ruuqaansaday dhanka iyo magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa dhanka iyo buuhood loo socda iyadoo la rajaynayo in ciidamada SSC iyo militariga dalka Ethiopia ay halkaas isku farasaari doonaan رئيسل وزراء دلك إثيوبيا دكتور أبي أحمد يا ولي قيل دان آد وبلارن يتاجر أمني راتسنيا يدو مانتا وقاري دلك تنزانيا إثيوبيا يا هذين يستاجر ملتري وآد وبلارن وكاشو دلك قارة أفريقيا رئيسل وزراء جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حمزة عبد بر أيا شيء إنه المصبح مرنا هشيس قال كرن هشيس كو قالنا ويا هل بعاد ولسي صوماليا أنا استدفاعي دونتو يسوي كويدا إنه يا هي سرقال سرق وتولا كتليا دلك الصومالية كترسنا سدوك الصوماليا يا شيكتين إنه هشيس لقلي دونتو حقوق كدر دولة الصوماليا وحقوق أرجع حسد دجالة عروس كنا جرا دولة الصوماليا خطبة داسية خطبة كلا وفا سنة يوركنا كويجينا برامجك وحاجة لا قيب قلا يا صاحب كي قولي وسود وركنا أيانو جود جلنا حالات مركلا أي عركة سكوسي شررتي دولة الصوماليا ويا هذا الشيء إلى دفاع عيسى شكتي قيل الآن هذا بلادنا ويسعتها وحن جلنا لنكا إيو SSC خاتم حدود كذا وحزب بحدها في إذا ما من الترجة دلك إثيوبيا ومعلنا ما إن شاء الله يتكسر رقان صدي جودها دول الديان كسومالي لنكا يقر حي كسر رقان صدي إذا ما ذني قلب آد علوس بيستان وهبك علوسها وإذا ما مرتاي دبابات كاي وطان عيد الأوديار جروبي علاد أما دجال صديارنا ينين ما عيد الحدود كوكلية أحيانا يا أما سيدي هو أمني الديان كلوس وجري إن الأغير إذا ما من الترجة إثيوبيا يسمين جرا سمينا يا جماعة dadka deegaanka oo la hadlay waxay noo sheegeen ciidamadan inay u socdaan buuhoodle iyo dhulka SSC ay ka taliso heshiiskii Somaliland iyo dhaxmaray dawladda Ethiopia koodii January sanadkan ayaa wuxuu qeexayay baariye ama dhigay ama heshiiska la marwanka ahayd in xuduudihii Somaliland lala sugo amniga ay galaan Ethiopia iyo Somaliland oo ahaa in dhulka ay Somaliland aqoonsatay in Somaliland yahay lagu soo celiyo gacanta maamulka Somaliland ayadan ognahay SSC khaatumo inay ka xog uga go'een iska xoreeyeen maamulka Somaliland hadana maamulka aqoonsiga dawladda Soomaaliya hoosta inuu yahay xaruntiisa oo tahay magaalada Laascaanood laakiin waxa la militariga dalka Ethiopia waxay rabaan inay gudaha u galaan SSC militariga Somaliland ayana iskaashan doonaan militariga Somaliland oo gudaha dawladda deegaanka Soomaaliya soo mariyay iyo waxay raaci doonaan militariga dalka Ethiopia buuhoodla ay ka galayaan dhulka SSC oo dhan bay xaqayaan balaleeyahay waxay u socdaan ilaa Laascaanood ilaa xeradii militariga Gooja Cadde ilaa oo dhulka isku fariyo dhulka SSC hada gacanta ku hayso xuduudka Somaliland meesha uu haan jiray ayay socotaa baliyay hawshan waxa la leeyahay waa qorshe culus oo Musabixi iyo Abi Ahmed ay galeen oo aha inta aan la tagin lug hayi saylac inta aan la tagin waa in Somaliland xuduudeeda la sugo kadib haday Soomaaliya soo dusho Soomaaliya waa in lagu la dagaalamo dawladda Garowe in lagu la dagaalamo waa qorshe aan la dhayalsan karin ciidamada Ethiopia dhaqaaqay halka ka wadana laga ogaanaya waxa la leeyahay xataa gudaha buuhoodla waxa lagu arkay ciidamo liyu booliska oo dawladda deegaanka Soomaalida uu leeyahay oo maalmihii ugu dambeysay dadka halkaas ku dhibaateynaya baa la yiri laakiin waxa waji kale u yeelay bahasha duulaanka ciidanka Ethiopia ciidanku waxa lagu leeyahay markii laga yimaado hubka iyo taangiyada military ay sitaan waxa lagu leeyahay waxa lagu daba wadaa rarki meesha digi lahaayeen raashinkii looriyo waaweyn oo raashin uu ciidanku xaynaya baa lagu leeyahay xaqana taangigii iyo qorihii laba dhumoodlaha oo ciidanka Ethiopia ay jiidayaan ayaa meesha qulqulay hawshu ma aha gooni hawl sahlan maxaad kale duulaanka Ethiopia ee ku wajahan dhulka SSC شنو ما سنتاي نورت إثيوبيا ندلنا سواقي سواح شكل أنا وهاي لكن وحال سكوا استقابك وحوي رئيسه ملوك هاي أسعتها موحي أسعتها لاس عنود استقاطه ما يردنا مش كسرته إن سي هدي الله فيريو إن إسس مش كسران أو لاس عنود تجان أي وحو مترئيس مصبيحي أي لودني تاسنا وهيك دكان تاي إن شيسك بدأ دفاع دين لفوقيه شيسك مصبيحي أو لقى لي أبي أحمدنا أي أساس مركوري
arrinta marka waxay keenaysaa in dagaal weyn oo halkaas ka dhaco haday dhaan la sacanada oo socona iyo buuhoole iyo dhul kale SSC ayaa qabsanayna waxay noqonaysaa Soomaalida dhan halkaas ugu tagto dagaal la wada galo isla markaana aan loo kala harin maadaama hadii SSC la soo cuno Puntland la cuni doono markaana Soomaalida kale loo gudbi doono taas marka waxay u baahan tahay in waji dagaalka waji ah in la isla galo Ethiopia iyo Soomaaliya ay noqoto laakiin hadda qorshaha sida aniga aan dareemayo ciidamadan iyo waxaan cabsi gelin ayaan u arkaa maadaama ay suurtagal ahayn in Ethiopia hadda dagaal ay gasho qaramadu waxay sheegtay in Ethiopia gudaheeda milyanis oo shacab ay baahi iyo rafaad iyo dhimasho iyo tacbaanimo iyo macluul ay la dala dhacayaan ayna suurtagal ahayn in hadda dagaal ay galaan waxay kaga digan marka Ethiopia inay dagaal qaado maadaama dhibaato fara badan dalkeedu ku jiro inay isku degdegeen inay dagaal ku degdegto ama dagaal toos ay qaado arrinta marka waxay la tahay in SSC qaatumo in dagaal toos ah markaas la galo SSC qaatumo laga saaro meesha ma sahlano Soomaalida ayana dagaal doonto dagaalkuna wuu weynaan doonaa laakiin waxay ila tahay in hadda Muuse Bixi la caawiyo oo la sacano la qabto inaysan sahlanayn oo Ethiopian ku dhahan badii aan socon meel aan u jeesanay oo waxaan la dagaalameynaa SSC la sacanood iyo buuhoole aan qabanayna taas waxaan u arkaa wax waji kale duulaan kale Soomaalida ku socdo moogay in arinta loo hayo iyo seelac ma qusayso marka waxa lagu waji kale yeelan kartaa shido waad maadsantahay gooni oo dib ayaan kugu soo laaban doonaa waxaan ugu soo biiray Master Bidhaan oo arintan iyadana wax ka weydiin doono Bidhaanow hawshu way sii adkaatay Ethiopia dagaalkii goobtii la filay goobaan ahayn ka bilowday ciidamada Ethiopia warkeen horsan ku sheegnay war dheer ilaa galaadi ilaa gobolkaas oo dhan ayay si saf balaaran u socdaan dadka deegaanka waxay noo xaqiijiyeen ciidamadan inuu taageed ku yahay laascaanood inuu yahay Somaliland garab laga siinay ciidamada Somaliland dheer xuduudka dawladda la soo mariyay ayna ka garab dagaalami doonaan Somaliland si dhab ah ay Somaliland loogu wareejin doono dhulkaas SSC-na ay hawshu ay ku cakarantay laakiin SSC-na aan qudhoodu waxay hawshu ku ogyihiin ma jiraan ciidamada way yaabayin bal qudhoo dadka dhan si Soomaalidu u wada aragto ma loo wada arkaaba leh maxaad ka leedahay waad mahadsantihiin Dr. Shade iyo waliba saaxiibkay Gooni horta qorshahan Ethiopia wax horay loo jeexay buu ahaa wana qorshihii markii uu tagay Muuse Ethiopia lagu soo heshiiyay umatan uu qayb uu ka ahaa heshiiskaasi maalmo u dambeeyay waxa socday dhameystirkiisa laba guddiba loo xil saaray oo ka kala socday Somaliland oo uu hogaaminayay qonsulkii u fadhin jiray Kenya muxuu ahaa maamulka Somaliland iyo waliba midkan asna matana Ethiopia-na waxay saaratay asna koox kamid ah dadkooda waliba qaar ahaan in oramada iyo waxay saareen heshiiska ay dhameystiraan safgarad fara badan iyo isjiid fara badan waxa lagu heshiiyay kow in matana loo hayo ay tagaan ciidanka Ethiopia oo halkaas matana ay howlgalkoodii iyo qaabkii ay dekadaas loo xarxari lahaa in la sameeyo laakiin waxa ka diiday Somaliland oo waxay dhaheen waxaan ku heshiinay koow wax kamid ah aqoonsi laba wax kamid ah in dhulka naga maqan noo soo celisaan oo garab aad noo noqotaan oo hiil aad inaga siisaan laakiin intii ma taqaana idin kama helno marka hore horta aan wax aragno kadib ma taqaana wixii kale wax kamid ah talaabo kamid ah waa in la arko marka waxa liiba aqoonsi horta uu dib badan yahay adduunka ma taqaana waa wax lagu soo degdega maahan dibna uu dhiga laakiin midkan kale ee ma taqaana inaan dhulkii idin soo celino tiiba ma taqaana sameeynayna ciidamadan shalay way soo baxeen wakaan warkeeni hore aan ku sheegnay waxay imaadeen mataqaanay gobolka Wardheer degmooyinkiisa mataqaanay sida Galaadi qayb ka mid ah dhanka xuduudaha xigo yay tageen waxaana loo wadaa inay ka gaaraan dhankan Buuhoodle yaa lagu wadaa iyo Marqaan kadibna ay gudaha saas ay u sii socdaan dhanka kalena waxa ka jira diyaar garow iyo kuwan Somaliland ay sameynayaan oo dhankan oo